wax walba markii la bilaabayay ayagoo dhameystiran lama bilaabin wax kastoo heer laga gaarin maalin ayay eber ka soo bilaabeen dadkaad maanta arkaysid malaayiinka subscribe haysta ama shirkadahan de maanta bishii intaas milyan soo xareedaad arkaysid oo dhan waxay ka soo bilaabeen eber wax walba bilowgooda eber waaye adigana wixii aad maanta ku hamiyid isla maanta dhaqaaqooda bilow sameey ficil la imaw kadib wax walba ayaga iska hagaagayo ha isdhihin ilaa ay wax iga hagaagayaan ayaan sugayaa marnaba ha isdhihin kaliya adiga dhaqaaqa la imaa wax walba ayaga is hagaajinayo muuqaalkeena maantana arintaas qayb kamid ah ayaan uga hadlaynaa haddii aad kamid tahay dadka jecel inay video editing ka sameeyaan muuqaale ay edit gareeyaan ay wax sameeyaan balse aanan haysanin qalabkii loogu talagalay haday noqoto software-da lagu edit gareyn lahaa ama camera-da lagu duubi lahaa waxaad sameyn kareysaa muuqaal aad adiga leedahay ama meel kale ka soo qaado laakiin editingkiisa aad adiga sameynaysid sida uu qurux badan adigoo u sameyn karayo kaliya waliba adigoo isticmaalayo taleefanka had iga daawanaysid kaliya waxaad u baahan tahay taleefon maanta qof aan taleefon haysanin ma laha taleefonkaaga haddaa haysatid wax walba waad haysataa xilligan aynu joogno taleefonka wuxuu daboolay baahiyo badan marka adigoo taleefonkaaga haysta marnaba ha isdhihin qalab ma haysti wax ma sameyn kari haddaad taleefon haysatid wax walba waad haysataa muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sideed muuqaalo u edit gareyn karaysaa adigoo taleefonkaaga isticmaalayo kaliya oodan wax kale u baahan intaas ayaan isla fiirin doonaa sidaan hore kuugu sheegay taleefon haddaad haysatid wax walba ayaad haysataa maanta taleefonka wuxuu noqday waxyaabaha loogu adeegsiga badan yahay haddii aad tahay dadka jecel inay muuqaalo sameeyaan oo wax edit gareeyaan maanta waa maalintaadii isla maanta waa inaad bilowdaa haddaad tahay dadka editingka jecel maanta waa maalintaadii isla hadda ayaad bilaabi karaysaa video editingka adigoonan wax kale u baahan kaliya applicationada lagu edit gareeyo ayaad la soo degaysaa halkan waxaan kugu soo gudbinayaa applicationo ay tahay inaad la soo degtid si aad editingkaaga maanta u bilowdid waxaa jiro applicationo fara badan kumanaan application oo editing lagu sameeyo balse applicationada waxaa lagu kala doortaa quality-gooda inay free yihiin iyo featureska kumanaankaas application waxaan kaaga soo qaaday applicationada ugu fiican ee free ah 100% featureskoodana aad u sareeyo intaas haddaad soo degsatid mid kamid ah ama ayaga dhan waxaad awood u yeelanaysaa inaad muuqaalo qurux badan aad edit gareysid applicationka koowaad aan soo qaadanayno waxaa waaye KineMaster haddaa haysatid waxaad sameyn karaysaa muuqaalo qurux badan oo loo maleeyo in lagu edit gareeyey software-da sida Premiere Pro, Sony Vegas iyo software-da kale lamid ah kombiyuutarada lagu isticmaalo waayo KineMaster feature aad u cajiib ah ayuu leeyahay aniga hadda idin la hadlayo editingka waxaan ka soo bilaabay KineMaster ayaa muddo dhowr sano ah wax ku edit gareyn jiray oo wuxuu leeyahay feature aad iyo aad muhiim u ah applicationka labaad aan soo qaadanayno waa application sanadihii ugu dambeeyay hawada ku shareeray oo xitaa applicationada waaweynaa ee kombiyuutarada lagu isticmaalayay hawada kala baxay applicationkaasna waa CapCut runtii dadka dhan way wada yaqaanaan CapCut waxaas kale shirkadda TikTok ee lagu magacaabo ByteDance waxaa si rasmi ahaan loo soo daayay sanadii 2020 bishii Abriil applicationkaas wuxuu noqday applicationada loogu isticmaalka badan yahay sanadka 2023 oo xitaa wuxuu ka saramaray TikTok oo ahaa applicationka loogu soo degsi badan yahay ayuu ka saramaray applicationkaas sababtuu intaas qof u soo jiitay waxaa waaye inuu free yahay iyo in featureskiisii aad loo soo hormariyey oo xitaa ay ku soo dareen qayb computer ah xitaa haddaa computer haysatid CapCut waad ku isticmaali karaysaa taleefon waad ku isticmaali karaysaa computer waad ku isticmaali karaysaa mid kale applicationkan uu dheeriya applicationada kale waxaa waaye muuqaaladaada si 4K ayaa ku soo saaran karaysaa haddii aad taleefon quality leh aad u wadatid waxaad ku soo saaran karaysaa muuqaaladaada 4K applicationkaas asigana applicationada editingka ee taleefanada lagu isticmaalo ayuu kaalinta koowaad ka galay sanadan labadaas application midkii markaas adiga aad ka heshid ayaad isticmaali karaysaa aniga ahaan waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaashid CapCut-ka waayo CapCut-ka si easy ah ayaad ku fahmi karaysaa featurediisa aad iyo aad ayay u fudud yihiin markii loo fiiriyo dhanka KineMaster asigana features fiican ayuu leeyahay laakiin inaad fahantid waqti badan ay kugu qaato laga yaabaa marka waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaashid CapCut haddaa haysatid feature qurux badan oo free ayuu leeyahay si fududna wax waad ugu edit gareyn karaysaa waxaad sidaa ku haysataa application lagu edit gareeyo video oo sidaa doontid ugu edit gareyn karaysid kaliya markaasi ay kaa xigto trickiska editingka aad taqaanid insha Allah ayadana muuqaalo ayaan ka soo sameyn doonaa
haddii aad tahay dadka jecel inay muuqaalo sameeyaan balse ku wareersanaa meesha ay ka bilaabayaan iyo siday ku bilaabayaan oo arkayaan dadkan kaamirooyinka quality la haysta editingkooda uu qualitygiisa sareeyo ayagana niyad iska dilayo oo isdhahayo wax ma samayn kartid qalab ma haysatid wax ma haysatid maanta laga bilaabo waa inaad dhaqaaqdaa qalab waa haysataa telefonkan haddaa haysatid qalab waa haysataa wax kale kuu dhiman ma laha wax walba ayaga ay soo buuxinayo keliya adiga la imow dhaqaaq iyo ficil haddaa la imaatid wax walba tartiib ayaga isku soo buuxinayo muuqaalkeena maanta intaas ayaan jeclaystay inaan idinku soo gudbiyo waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo dhaadid oo muuqaalkana like aad noo saartid si uu dad badan u gaaro